ku kala duwantiin idinkii shabaabku iyaguna waxbay dumiyaan idinkuna waxba dhistaan idinku dadkiina aad u naxariisataan iyagu dadkooday baabiciyaan idinku Soomaalinimada iyo qarannimada dhistaan iyagu waxay rabaan inay qof Soomaali oo dambe u soo noolaan iyagu waxay ka shaqeeyaan inay asalka ummadda Soomaaliyeed cirib tiraan idinkuna waxaad ka shaqeysaan qarannimo baabacday inaad soo nooleysaan qarax shalay halkan ka dhacay waxa loogu talagalay in lagu dhibaateeyo ummad Soomaaliyeed oo shacab ah meeshii ugu shacabka badneed ayay la eegteen macnaheedu waxay tahay sidaan hore u sheegay waxay soo direen fariintii ugu dambeysay shabaab oo aan rabo qof walba Soomaaliyeed inay ogaato fariinta ay soo direen waxay tahay ma rabaan qof dambe oo Soomaaliyeed inay noolaato cid ka difaac leed waa idinka waxaan rabnaa meeshan maanta waxaan imid iyadoo aan waxba looga jeedin ilaahay ka sakooyay idinka hadda waxay noqotay jid la mari karo sharaftiina iyo karaamadiina iyo cidaatiina wax ka sheegaysa qashinku marka la qaado meesha la hagaajiyana kuwii dambigaan geystay cid ka daba tagi lahayd oo falkaas ka jaasay lahayd waa idinka cid dalka ka xoreyn lahayd waa idinka haddii aad aragteen in boqolaal Soomaaliyeed oo hooyooyin iyo aabooyin lagu laaya meeshan inaanay mar dambe u dhicin mar dambe inaan la leen yaa laga rabaa inay hor istaagaan diyaar ma u tihiin inaad sidaas yeeshaan nolol maxay nagu taraysaa in dadkeena sidaan loo leenayo waa muhiim inaan maantay noogu dhowdahay dawladdiina iyo idinku inaad gacmaha isqabsataan shacabkiina waa idin jecel yihiin taariikhda mar baa la qoraa diyaar ma u tihiin taariikhdii shabaabka looga xoreyn lahaa dhulka Soomaaliyeed inaad qortaan waa maadsantiin waa idin soo duceynaynaa wax walba xuquuq ah leediina waa heli doontiin haddii la yiraahdo